doorashadii qof iyo cod ee muddadii hadda 3 sano iyo barkii ugu dambeeyay laga shaqeynayay halka ay ku dambeysay waxyaabaha la isla ogol yahay waxa la diidan yahay madasha mucaaradka kala dhiman ee Sheekh Shariif uu hogaaminayo waxa ay doonayaan iyo sidoo kale in iyagana ay qayb ka noqon doonaan oo ku soo biiri doonaan gogasha furan ee madaxweynuhu uu fidiyo uu sheegay in wada hadal iyo wada xaajoodku uu furan yahay isla markaana go'aanadooda la tixgelinayo iyadana bal waan soo qaadan doonaa halka la kala taagan yahay ee siyaasadeed ama xalka siyaasadeed ee dalku ku jiro ayaana muuqaalkan si kooban uga hadli doonaa hadduu alla idmo soo dhawaada idinkuna muuqaalkana like saara aragtidina ay gula wadaaga qaybta commentiga aan ku bilaabay maanta shir muhiim ah ayaa ka qabsoomay xarunta madaxtooyada Soomaaliya filla Soomaaliya taasoo uu shir gudoomiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ka soo qayb galay garabka madasha samata bixinta mucaaradka Soomaaliya ee ka goostay ama ka baxay habeenno ka hor ee ku biiray ama la aragtida noqday madaxweynaha Soomaaliya ayaa halkaasi ka soo qayb galay madashu waxay soo wada saareen ama kulankan waxaa diiradda lagu saarayay horta guud ahaan lagu saarayay arrimaha siyaasadeed ee dalka gorfayn kadibna waxay soo wada saareen warmurtiyeed ka kooban ilaa iyo 12 qodob oo markaasi looga ay sheegeen in heshiis laga gaaray qodobka koowaad waxaa la isla gartay baa la yidhi adkeynta madax banaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ama Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed laba waxaa la isku raacay in laga wada qayb qaato xoojinta amniga dalka iyo dadaalada dib u xoreynta deegaanada ay weli ku sugan yihiin kooxaha argagixisada saddex baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dooranaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed sidoo kalena golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada ayaa dooranaya hogaamiyaasha iyo ku-xigeenada maamul goboleedyada dalka afar madaxweynaha ayaa leh awoodda uu ku magacaabayo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxaana ansixinaya baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ayaa ansixinaya kalsoonidana kala laaban doona ama kala laaban kara baarlamaanka ayaa macnaha kalsoonida kala laaban kara ee madaxweynuhu xilka kama qaadi karo iyaga ayaa ansixinta leh madaxweynuhu magacaabis kaliya ayuu yeelanayaa shan waxaa la isla gartay in ururkii ka helaa waa urur siyaasadeedyada urur siyaasadeedkii doorashooyinka ka hela ama baarlamaanka ka helaa 10% in xisbi loo aqoonsan doono oo xisbi buuxa uu noqonayo waa 10% baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya cid ururka ay u codeeyaan urur siyaasadeedka ay u codeeyaan inuu markaasi xisbi buuxa uu noqon doono lix hanaanka doorashada dalka waxaa lagu sameynayaa xeerka doorashooyinka ee 2024 iyadoo oo la tixgelinayo qodobada warmurtiyeedka ku xusan toddobo waxaa lagu heshiiyey in si dhaqso ah loo gudagalo qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka dowlad goboleedyada iyo tan dowladda federaalka Soomaaliyeed ba si dhaqso ah in lagu gudagalo ayaa lagu heshiiyey sideed waxaa lagu heshiiyey in sida ugu degdega badan loo dhammaystiro cutubyada weli harsan ee dastuurka federaalka si loo sugo baa la yidhi sharciyada iyo geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya sagaal waxaa la isku raacay qodobkan si fiican u dhageysta marka waa qodobka ugu muhiimsan waa qodobka siyaabo kala duwan dadku ay u qaada dhigayaan waa qodobka uu ku urursan yahay waxyaabaha ugu weyn ee la isku hayo inta koraba way sahlan yihiin markii loo fiiriyo adkaanshada iyo go'aanada labada dhinac ama mucaaradka iyo muxaafidkaba ay kala haystaan sagaal waxaa la yidhi waxaa la isku raacay in si wada jir ah muxaafid iyo mucaaradba looga wada qayb qaato raalli ahada waa sida looga wada qayb qaato geedi socodka doorashada tooska ah ee qof iyo cod waa kow oo lagu soo dooranayo golayaasha deegaanka golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedyada iyo labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa aqalka sare sanadka iyo aqalka baarlamaanka Jamhuuriyadda aqalka hoose
ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxaa la yidhi lambar 9 dib ugu laabta waxaa la isku raacay baa la yidhi in si wada jir ah muxaafid iyo mucaaradba looga wada qayb qaato geedi socodka doorashada tooska ah waa doorashada tooska qof iyo cod oo lagu soo dooranayo golayaasha deegaanka waa golayaasha deegaanka heer deegaan weeye maamul goboleedyada weeye golayaashooda wakiilada dowlad goboleedyada iyo labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya intaba waxaa lagu soo dooranayaa doorasho qof iyo cod baa lagu soo dooranayaa maxaa harsan marka haddii golayaashii iyo labadii aqalba lagu soo doorto doorasho qof iyo cod ah maxaa harsan waxaa harsan madaxweynihii soomaaliya madaxweynihii baa dhiman madaxweynaha yaa soo dooranaya madaxweynaha waxaa soo dooranaya baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee codka shacabka ku yimid ee doorashada qof iyo cod ku yimid ayaa soo dooranaya kuwaasaa dooranaya micnaheedu maxay tahay marka dibbaa loo noqonayaa waa la noqonayaa dibbaa loo noqonayaa weye xaggee loo noqonayaa efisoni marka madaxweynaha weli efisoni bay tiisa taallaa waa laga go-aan gaari waayey waa la iskula dhigay xaalku waa adkaaday dhinacyo kala duwan baa isku dhigay ugu dambaynna tanaasul baa yimid xal ma u tahay ummadda soomaaliyeed doorasho qof iyo coda in la galay xal u ahayd laakiin waa lagu khasban yahay in masaaliixda laga shaqeeyo dalka oo wixii adkaado wadatashi dib loogu celiyo waa muhiim ceeb kuma aha madaxweyne xasan ceeb kuma aha ra-iisul wasaare xamse ceeb kuma aha xukuumadda ceeb kuma aha doorashooyinka ee wixii adkaado oo la dhaqaajin waayo waa lagu khasban yahay in dib layskugu laabto oo halkii ay mudan tahay lagu celiyo marka haddii la dhaqaajin waaye laysla diiday laysla ogolaan waaye in doorashada madaxweynaha qof iyo cod lagu qabto oo loo arkay in waxa weeye dib loo laabto ama la tanaasuli waayo mucaaradku ay tanaasuli waayeen madaxda dowladdu inay u tanaasulaan mucaaradka loo tanaasulo way ku mahadsan yihiin marka teendhada efisoni baa loo laabanayaa midda madaxweynaha inta kalena doorasho qof iyo cod ayaa lagu qabanayaa marka sidaasi ha la ogsoonaado qodobka 10aad waa baaq iyadoo laga ambaqaadaya baa la yidhi isfahamkan laga gaaray arrimihii lagu kala aragti duwanaa waxaan ugu baaqaynaa baa la yidhi daneeyaasha siyaasadda in loo midoobo lagana wada qayb qaato dhammaystirka geedi socodka dimuqraadiyeynta dalka soomaaliya waa baaqi ugu dambeeyey baaqaas bay direen oo ay leeyihiin ha laga qayb qaato dimuqraadiyeynta iyo dejinta xasiloonida iyo hanaanka geedi socodka doorashooyinka dalka soomaaliya kollay qoftiida la waayi mahayo waxaa la yidhi hal toojaa geeday ku xoqota ma weydo waa suurtagal kuwo badan oo sidan doonayay markay haddana sidan soo baxdo inay gees kale ka buskiciyaan oy gees kale jidiya jahadiid ummadda waa ku dhex jiraan qaar unbaa diidi doona laakiin hadda qodobadan waa qodobo la isku soo dhawaaday waxaana qayb ka ah intii badnaydba madashii samata bixinta soomaaliya la magac baxday garabkii ka baxay habeen hore ayaa meesha ku sugan waa saamilayda siyaasadeed oo weliba markii loo fiiriyo xagga saami qaybsiga amaba halka ay kasoo kala jeedaanna waa dad miisaan culus leh oo deegaan iyo dalba kasoo jeeda weye marka taana iyadana waa sidaa heshiis baana laga gaadhay warmurtiyeedkii maanta soo baxay ee madaxda dowladda federaalka iyo mucaaradka ay soo wada saareenna nuxurkiisu waa intaan idin akhriyey xagga mucaaradka madasha qaybta dhiman waxay ka dhihi doonaan lama garanayo warka soo bixi doona lama garanayo laba garab baa dhiman garab uu farmaajo hogaamiyo iyo garab uu hogaamiyo ninka la yidhaahdo sheekh shariif sheekh axmed labadaasi garab baa maqan inta hadda la garanayo ee dadka siyaasadda ama talada dalka soo qabtay ee siyaasadda ku soo jiray labadaasi garab bay dadku isha ku hayaan maxaa ka soo bixi doono maxay sheegi doonaan may aqbali doonaan may diidi doonaan way soo socotaa ka hor dhici mayno waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu alla idmo